dhacdada xanuun badan ayaa waxay ka dhacday xaafadda Magis Plain ee gobolka Western Cape ee dalka Koonfur Afrika kadib markii wiil Soomaaliyeed oo bastoolad ku hubeysan oo rasaas la dhacay dhalinyaro Soomaaliyeed ee ku sugnaa maqaaxi lagu qaxweeyay ku taal xaafadda Magis Plain ee gobolka Western Cape. ciidamada booliska ayaa soo gaaray goobta dhibaatada ay ka dhacday ayagoo gacanta ku dhigay wiilkii dilka geystay. 3 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa geeriyootay halka nin u dhashay wadankan uu dhaawac ka soo gaaray rasaastii uu furay wiilka Soomaaliyeed. waxaan codsanaynaa marka waxa weeye dhibku waa inagu dhacay dhib kale yuuna sabab inoogu noqon war xumata shiilka iyo sidana iyo ku tiri ku teenta iyo waxaan la ogeyn iyo fasahaadka hal iska daayo fasahaad uma baahnin maanta annaga wixii fasahaad dhici karay uu dhacay hadday sababtu noqotay nin Soomaaliyeed inuu Ilaahay sabab uga dhigay dadkan walaalaheen ee dhintay waxaan leenahay fasaadka yaan fasaad lagu sii darin sidaas ba ugu muhiimsan dilalka dhacaya ruuxii geystay iyo ruuxii ay cadaatay lug inuu ku lahaa markii la baadho dadkaas ruux kasta wuxuu ka geystay ay mudan tahay in loo qabto fawdana islaamku ma ogola oo fawda iyo ruux inuu ruux iska dila xataa oo aana isaga dila iyo kada iyo waxa soo dhan lama ogola shariicadu ma ogola marka dhalinyaradana waxaan ku wanaa iyo dadka insha Allah walaalaha ah in la istajiyo insha Allah ta'ala arintani sababtani kulli bal wixii keenay waa la baari hadaa la idno way iska cadaan doontaa. Konsulka ahna siyaasada safaaradda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ayaa soo gaaray magaalada Cape Town isagoo taasi u diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii ka geeriyoodeen wuxuuna dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka feejignaadaan arrimaha noocan oo kale ah. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan ka tacsiyeenaynaa marka koobaad geeridii ku timid walaalaheen Ilaahay naxariista jannaha siiyo. waxaan ehelkoodii qaraabadoodii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeenaynaa geeridaas naxdinta lahayd. intaas kadib waxaan ummadda Soomaaliyeed uga digaynaa inay sameeyaan ficilada noocan oo kala ficilladaan waxay carqalad ku noqonayaan waxay hagardaacinayaan dadaalka aan ugu jirno in Soomaalida halkan joogto la badbaadiyo maxaa dhacay birita waxa imaanaysa in la dhaho Soomaalidu ayada istisha waxaan ku sharciyeynayaa inaan haysano hub sharci darra oo isticmaalno waxay carqalad ku noqonaysaa ficilada noocan oo kala dadaalada aan rabno inaan ku badbaadino dadkeena iyo hantidooda. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Amaan Cade telefishinka caalamiga ee Royal TV Cape Town Koonfur Afrika.